بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى وبعد. مرحبا بكم في مادتنا اللغة العربية الحبيبة، ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني من دروسنا المتواصلة، وعنوانه مصطلحات بيتية. وعشر كاني لواد اللغة العربية كسابسن إري بحنو قريد وإريو كسابسن قريقة. guri ayaa laga wadaa, manzilun guri ayaa laga wadaa. sidoo kale waxaa la mid ah maskanun guri, daarun guri. intaas waa isku micno: baytun, manzilun, maskanun, daarun. dhammaan waxaa laga wadaa guri. ereyga labaad qasrun, sar. qasrun, sar. ereyga saddexaad albanaa. albanaa waxaa laga wadaa dhismo. ereyga afraad cimaaratun sakaniya. cimaaratun sakaniya waxaa laga wadaa dhismo la degan yahay. dhismo la degan yahay. ereyga kale ku xiga wuxuu noqonayaa bahwun, barando. bahwun, barando. ereyga kale ghurfatun, qol. ghurfatun, qol. ereyga kale ghurfatun khaaliya. ghurfatun khaaliyatun waa qol banaan. qol banaan. ereyga kale ghurfatun mashghuula. ghurfatun mashghuulatun qol lagu jiro. qol lagu jiro. ereyga kale baytun ma'huulun. baytun ma'huulun waa guri lagu jiro, yacni fiihi ahluhu, ehelkiisa ku jira. ma'huul yacni waxay u laabanay ila al-ahl, waa guri lagu jiro. milkiyatul bayt waxaa laga wadaa lahaanshaha guriga. milkiyatul bayt lahaanshaha guriga. ereyga ku xiga ghurfatul juluus. ghurfatul juluus qolka fadhiga. qolka fadhiga. ereyga kale ghurfatul istiqbaal, qolka soo dhaweynta. ghurfatul istiqbaal qolka soo dhaweynta. ereyga kale ghurfatun nawmi. ghurfatun nawmi waa qolka hurdada. qolka hurdada. ereyga kale ghurfatu dayf. ghurfatu dayf waxaa laga wadaa qolka martida. qolka martida. ghurfatul xamaam. ghurfatul xamaam waxaa laga wadaa qolka musqusha. qolka musqusha. sidoo kale bisaad. bisaadun waxaa laga wadaa rooga oo guriga lagu fidsado qolka. bisaadun waa rooga. shamcatun waa shumaca oo dhulka la fidsado. shamcatun waa shumaca. waxaa kale ku xiga shamcatul mudaabi. shamcatul mudaabi shumaca la shito. shamcatul mudaabi shumaca la shito. ereyga ku xiga sitaarun. sitaarun daah. daah ayaa la yidhaahdaa. mikwaatun feero. mikwaatun feero. ereyga kale ku xiga dawratul miyaah. dawratul miyaahi musqul. musqusha intaasoo magac ay leedahay waxaa ka mid ah dawratul miyaah hadda aan hayno, iyo mirxaadun musqul, iyo xamaamun musqul, iyo kaniifun musqul. intaas waa isku micno. midda kale miyaahu sharaabi, biyaha la cabo. miyaahu sharaabi biyaha la cabo. cafwan, ereyga saddexaad haddii aan dib ugu laabto, albanaa halka aan ka dhahay aan kordhigay ba'da hoos dhig, waxaad leedahay albinaa. albinaa'u waad mahadsantihiin. 23kaasi erey ayaan ku gaabsanayaa. waa walaalkiina Muxamed Cabdulqaadir oo idinla jecel wanaagga iyo faa'iidada cilmiga. sidoo kale waxa uu aad u jecel yahay in uu kor u qaado luqadda carabiga, waayo waa luqadda qur'aanka kariimka. allah wuxuu yidhi nazala bihi ruuxul amiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyin mubiin. waxaan filayaa daawadayaal, dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysateen oo aadna gaarsiin doontaan walaalihiina si aad faa'iidada isula qaybsataan. halkaasi ayaan kusoo afmeerayaa cashirkii labaad ee maanta aan qaadanay. waa inoo kulun dambe iyo cashir cusub. wabilaahi towfiiq.